haddii ay sidaa ku socotay ayaa raggii adkaysan waayey markaas bay inta shireen waxay tana ku goosteen war wiil waa labadan cad ee neef kasta u wanaagsan ma wada heli karo dhaxalna uma uu heline aynu mid ka reebno taladaas ayaa lagu heshiiyey waxaase haddiiba la isku afgaran waayey oo cid dabarka u ridata la waayey ninkii isaga u sheegi lahaa in labadii cad mid laga reebay wax fooda la iskula jiro oo dhulxariiq lagu foognaadaba ugu dambaystii ayay guddoonsadeen inay iska soo dhex saaraan 3 nin oo go'aankooda wiilwaal si wada jir ah u maqashiiya ballan waxaa laga dhigtay in lagu yidhaahdo wiil waa labada cad iskuma heshid hase ahaatee aan nin keliyihii odhanne weedha dhihiddeeda la qaybsado waxaa lagu heshiiyey ninka koowaadi inuu yidhaahdo wiil waal kan labaadna uu yidhaahdo labada cad kan saddexaadna ugu dambaysta uu yidhaahdo iskuma heshid fiidkii kolkii ay golihii ku soo dhammaadeen ayaa ninkii hore yidhi wiil waal oo degdeg u fadhiistay markaas buu kii labaadna halhaleel u yidhi labada cad oo isna iska aamusay kii saddexaad kolkii uu u hogbaday weedhii la isku ogaa inta ka dhiman inuu ku daro ayaa waxaa daymo kulul ku eegay wiilwaalo markaa warankiisii si wacan gacmaha ugu qaabsaday daymadii qallafsanayd iyo umalkii foolkiisa ka muuqday ayaa ninkii cabsi ba'an ku riday labada bowda ayaa jareeyey garaacii wadnihiisa ayaa waxaa maqlay kuwii garabkiisa fadhiyey nin kasta oo goobta joogay waxaa ka dhaadhacday goorta uu afka ciidda gashan doonaa inay isha baalkeeda tahay halkii laga filaayey in hadalkii hore ee ahaa labada cad uu ku dhammaystiro iskuma heshid ayuu argagaxi badnaa ka yeelsiiyey wax aanu uurku doonayn afkusa ka xaday markaas buu yidhi lug laguugu dar kolka ma war baa yaal xan mooyee sow in loo bareeraa ma dhiman maantaa kadib sow labadiisa cad iyo wixii uu doono oo uu ku darsadaa uma garoobin sheeko iyo mahmaah lagu maadaysto soo ma ay noqon waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal dhegaystayaal weli isaga oo aan la shuumin isaga oo aan weli garaad loogu yeerin ayuu magaca wiilwaal dhab u soo shaac baxay coofka ayuu kor u taagay wuxuu isla ekaaday baarqab awr dhufaanan lagu sii dhex daayayoo inta miciyihii soofaystay qooq la golongolay goob alla goobtii la isaga hor yimidba libin buu kala laabtay colkii uu hoggaamiyeyba guul iyo gacmo buuxa ayuu la soo noqday arlada ayuu habeela'aan u taxaashay hiyigana wuxuu gashaday inuu geyigaba ka dhowro nin caqli iyo garasho kala mid ah amaba ugu soo dhowaan kara ragannimo nin uu ku maleeyey iyo isagu xiire ayay ahaayeen dhab wuxuu u rumaysnaa mahmaahdii ahayd qoori xero kuma heshiiso magaciisa dheeraaday iyo haybaddaas wuxuu huwanaadaba 30 ayuu baarka ka jaray xoog iyo garashaba wuu istaawiyey nin walibana bannaanka ayuu ka maray maalintii dambe isaga oo ciidankii soo jeedayaasha cidhifka degmada ugu maqadina oo guutooyin tolka soo weerara kaga gaashaaman ayaa ku dhambaal baas wadaay la soo joogsaday hadday isbariidiyeen kadibna wuxuu ku yidhi xirsow garaad faarax eebbaha u naxariisto adiga iyo annagana haynaga samarsiiyo waa geeridii aabbihiis waxa uu u sheegayaa taasoo sida la garan karo uu aad uga naxay aadna uga walbahaaray waxayse naxdintu ugu darayd markii uu ninku u sheegay inaan aabbihiis bas u dhimane uu bir u dhintay oo la dilay madaxa ayuu foorarayey cabbaar kadibna wuxuu dhambaalwadihii ka toyday ciddii garaadka dishay iyo guud ahaan siday wax u dhaceen show nin la oran jiray khayra shirwac iyo garaad faarax ayaa muddaba eed lahaan jiray wuxuu khayra garaadka ka taban jiray in badan oo uu tolka wax u qaybiyey inuu isaga ka eexday cadaalad darro gooni ugu dhacday ayaa maankii ka qaaday kolkaas buu dhagar ku tashaday dhiiggii garaadka ayaa u hilaacay waxaaba iska hor caddaysay intuu dilo garaadnimadaba inuu isagu kala wareego dabadeed iyada oo la degan yahay hoos saara meel la yidhaahdo oo geedkii shirka lagu dhan yahay garaad faaraxna fadhiyo ayuu khayra soo muuqday waa la wada dhugtay isaga iyo kaalkiisii weynaa oo u dhexda haysto wuu soo dhowaaday nabad ma sheegteen iyo maxaa la isugu warramay isaga oo aan odhan ayuu shirkii gabay ku bilaabay waxaa laga qabtay isagoo leh qadaar malab ah oo meel qotoma oo rag wada quuto khayrow aduunii ka qatanow qaadan kari maayo oo isaga oo aan erey kale ku darin warankii uu gacanta midig ku haystay garaad faarax wadnaha kaga xabaalay
isla markiiba isla goobtii waxaa isagana hooto halgaad ah saabka kala helay nin geedka fadhiyey oo ay garaadka xigaalo dhow ahaayeen. khayra shirwac kolkii ay naftu ka baxaysay halkii uu ka tawxiidsan lahaa wuxuu ku alaladay qalay oo ka qaday qalay oo ka qaday oo uu ula jeeday boqornimadii aan garaad faarax ka dilay ee aan islahaa adigu la soo meero adigu shafeecso rag kale ayay u gacan gashay anna waan ka qaday. laba xajuub oo aan kala fogayn ayaa galabnimadiiba khayre iyo garaad faarax inta lagu aasay looga soo kaca. dambaalwaduhu warkii ku saabsanaa geerida aabbihii ka sokow fariin kale ayuu wiilwaal u siday. odayadii tolka ayaa marba hadduu isagu dhaxalka garaadnimo leeyahay waxay u soo fareen halkii ay degmadu tiil inuu degdeg u yimaado si loo caleemo saaro. markaas bay wiilwaal tala ku caddaatay. laba arrimood ayaa isku mar la soo gudboonaaday. wuxuu og yahay dhowaanna uu ka digniin helay col mahiigaana oo reerahooda dhowaan ku soo duuli doona. karinta uu ragga ku haysto haddii uu banneeyana tolka ayuu colkaasi cidlo ka heli doonaa. nin kale oo uu caabigiisa ku halleeyaana uma uu muuqdo. midda kale waa gar oo xeerka ayaa ahaa haddii uu nin madaxay geeriyoodo midka mutaysiga u leh in si degdeg ah dhuubka boqornimo madaxa loogu xiro. ceeb aan dusha loo ridan karin ayay ahayd maalinna allaha ka dhigee tol aan lahayn madax kala hagta waxna u qaybisa. wuxuu isweydiiyey ma waxaa jirta cid aan adiga ahaynoo garaadnimada hawaysan karaysa? jawaabtu waa maya. ma cid baa kugula murmi karta? iyana jawaabteedu waa maya. cabbaar haddii uu naftiisa la tashanayay ayuu go'aan gaaray. wuxuu ku tashaday maantaa la joogo inuusan degmada waxba ku degdegine colka soo socda uu u tooghayo tolkana uu ka caabiyo. dabadeedna dhambaalwadihii oo jawaab ka sugaaya ayuu u yeeray. wuxuu u dhiibay go'iisii khayriga ahaa ee reeraha oo idili ay ku yiqiineen. markaas buu ku yidhi maradan qaadoo kolkii aad shirka geyso geedka dushiisa ha lagu fidiyo, dabadeedna iyada ha la caleema saaro oo caana ha lagu shubo hana loo dabaaldego. aniga oo idinla jooga unbay la mid tahay sidaas ha la yeelo. waa la yeelay. waxayse noqotay xaajo ugubo aan cidi uga horrayn. wixii garaadada iyo ogaasyada soomaalidu ay tiro lahaayeenna keligiis uun u suuro gashay. haddii khayridii loo dabaaldegay kadib wiilwaalkii ina garaad faarax ahaa wuxuu noqday garaad xirsi garaad faarax. muxuu la soo bixi doonaa? muxuu noqon doonaa? anshigiisa wax ma iska bedeli doonaa mase muquunintii ragga iyo dhaqankiisii hore ayuu ku wadi doonaa? su'aalahaasina waxay ka mid ahaayeen dadkii arrinta goobjoogga u ahaa kuwii ay maalintaa isweydiinayeen.